waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ku soo dhawaada channelkeena Koryaal. Maanta waxaan idiin wadaa qise aad iyo aad u cajiib badan. Qisada oo ah naagtii sinada uurka ku qaaday iyo wadaadkii qabay oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jannada ugu bishaareeyay. Qise cajiib ah. Fadlan haddaadan ka mid ahayn asxaabta waxaan soo shumad kaaga codsanayaa inaad subscribe tiraahdo sidoo kalena gambaleelka aad furato. Mahadsanidin. Waxay qisaduna dhacday xilli hore waxaana jiray sheekh Saahid ah. habeenada ka mid ah ayaa waxa riyada ugu yimaaday suubanihi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu nagu bishaareeyay in ninka dariskiisa ahi uu rafiiq kula yahay jannada. Sheekhi farxad iyo reereyn ayay u noqotay oo waxa uu ahaa nin Ilaahay cilmiga Quraanka iyo fiqiga ku manaystay aad ayuuna ula yaabay. waxa uu sidoo kale la sii yaabay ninkan dariskiisa ah ee ganacsadaha caadiga ah oo jannada lagu bishaareeyay. Si degdeg ah ayuu u baxay sheekhi gurigiisa waxa uuna aaday ninkii dariskiisa ahaa gurigooda. waxa uuna ku yiraahday dariskaygiyow waxaan bishaaro kaaga wadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam Nabi Muhammad. ninkii aad ayuu u farxay waxa uuna ku yiraahday bishaaro xagga rasuulka ka timaaday sallallahu alayhi wasallam ee baweyne ayaa mahad iska leh ayuu ku jawaabay. waa maxay bishaarada aad ii wado ayuu yiri ninkii ganacsadaha ahaa. waxa uuna sheekhi ku jawaabay wallahi ku sheegi maayo ilaa aad ii sheegto waxaad mansiladatan ku gaadhay heer rasuulka sallallahu alayhi wasallam jannada kuugu bishaareeyo. ninkii odayga ahaa waa aamusay waana diiday inuu sheego. hase yeeshee sheekhi oo ku celceliyay kuna cadaadiyay aawadeed ayuu ninkii odayga ahaa yiraahday haye inkastoo aan jeclaan lahaa in qisadatun aniga iyo eebaweyne noo dhaxayso hase yeeshee waan kuu sheegi. beri hore ayaan waxaan la kulmay inan aad u qurux badan. waxay ahayd gabar qurux iyo akhlaaq ba Ilaahay ugu dhameeyay kuna haboon in la guursado. waxaan ka codsaday inaan isguursanno wayna aqbashay. bil kadib markii aan wada degnayn ayaan kala kulmay wax cajiib ah taasoo ahayd in caloosheedu aad u weynaatay. markaas ayaan isweydiiyay talow uur miyay leedahay. guriga kama aysan bixi jirin cidna lama kulmi jirin cidnana uma imaan jirin sida qof baqaya oo kale. waan iska daayay oo lama hadlin mana canaanan. markii ay 5 bilood ka soo wareegtay guurkeennii caloosheeduna u eekaatay calool 9 bilood xambaarsan ilmo ah ayaan canaantay ilaa ay ii sheegtay in wiil ay isjeclaadeen uu ka sinaystay kana ballanqaaday inuu guursan doono balse uu khiyaameeyay beenna u sheegay. kadibna uur ayay yeelatay ayay ugu dadhay arrintii. waa intaan isguursan ka hore aad ayaan ugu xanaaqay waxaana awooday inaan furo oo ceebeeyo sharcigana hor keeno waana garab istaagi lahaa maadaama ay sinaysatay. laakiinse waan iska daayay waxaana go'aansaday inaan toobadda eebe u weydiiyo ilaa ay soo dhawaatay xilligii ay dhali lahayd. waxaana ugu yeeray gabar umurisa si nabad leh ayay waxayna ku dhashay wiil. waan fasaxay gabadhii umurisada ahayd ayuu ku daray wadaadkii. waxaana go'aansaday inaan ilmihii qaado maalinka xigay salaadii duhurka. waxaana u qaaday dhankaas iyo masaajidka. waxaan iska ilaaliyay inuu qof i arko. markii salaada duhur la galay kadib ayaan waxaan dhigay ilmihii safka dambe gadaashiisa. salaadii ayaanan galay. salaadii markii laga baxay mise dadkii waxay ku tuunsan yihiin ilmihii yaraayo ooynaya. waana sidii aan rabaye intaan u imaaday ayaan ku dhahay maxaa jira. waxayna igu jawaabeen waa wiil yar oo aanan garanayn cidda dhashay. markaas ayaan ugu jawaabay ilaan waa sidii aan rabaye keena aniga ayaa qaadanaya oo korsanaya. wiilkii yaraana sidaas ayaan ku soo qaatay waxaana dib ugu soo celiyay hooyadiis oo xanaanaysata sidoo kalena korsata. halkii ayayna hooyadiis ka toobad keentay. waxaana go'aansaday inaana cidna u sheegin qisadatan ilaa aad ii timaaday maantay. markaas ayaana sheekhi waxa uu ku jawaabay Ilaahay ayaa mahad iska leh aana marnaba ilaawin addoomihiisa. waxaana ka baran karnaa qisadatan inaad xalliso dhibaatadaada kuna xalliso deganaansho iyo caqli badnaansho eebana tala saarato. waxaa laga yaabaa inaad janno ku hanato samirkaas yar. fadlan haddaadan ka mid ahayn asxaabta channelka waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad ku soo biidho sidoo kalena gambaleelka furato. mahadsanidin.